السلام عليكم دمان أصحابتا aad baan idin salaamayaa waa videogeeni labaad waxaan isla eegi doonaa maanta sideen trade markaa u qaadan lahayn oo trade u furan lahayn sidoo kale demo iyo real waxay ku kala duwan yihiin waxaan hore u soo qaadanay MT4 ka sideen u isticmaal lahayn aan u soo dhowlan gareysan lahayn isla markaana aynu demo account u furan lahayn dan markaa aynu ugu soo darsan lahayn lacagaha inaga maqan oo dhan waxaanu isla eegaynaa waxaanu soo furanaynaa markaa MT4 ka markuu MT4 ku sidan kugu soo baxo daaqadaas aad click siinaysaa manage account aad ku dhufanaysaa markaa waxaad click siinaysaa markaa plus kaas aad markaa click siinaysaa open demo account waa inaad demo furato sidoo kale login and exiting account waxa weeyaan markaa aad realigii aad markaa furato markaa isla kan ayaan ku dhufanayaa kan marka aan ku dhufto realiga ah halkan find broker waxaan gelinayaa brokerkii aan isa soo register gareeyay brokerkii aan lacagta dhigtay ee isa soo register gareeyay ee aan ku xareeyay documentigayga ee iga aqbalay ayaan halkan ka dooranayaa markaa magaciisa iyo sidoo kale numberka serverka uu siiyo badanaan waxa dhacda inaad lambarka weydo way dhacdaa marmar aad lambarka waayayso oo ku siiyay oo meeshan ka waayayso ciladaas oo kale waxaad ku xalin kartaa dib baad soo noqonaysaa waad soo noqonaysaa halkan ay ku qoran tahay about baad click siinaysaa marka muuqaalkan MetaTrader 4 ka ayaad click siinaysaa marka waad haynaysaa hold on cabaar baad hold on gareynaysaa marka u gariir aad dareento ayaad sii diinaysaa marka then waxaan tagi doonaa marka saasaad cilada horta ku xalinaysa iyada waana lambarkii marka aad raadinaysay isla meeshii markaad ku soo noqoto wada helaysaa marka lambarkii serverka aad raadinaysay halkan sarena waxa weeyaan marka deemadii weeyaan oo kaliya ta isaga intaad raadiso magaca broker aad rabto ayaad click siinaysaa wajahadan hore ku soo baxda ayaad markaa buuxinaysaa waxaad sameynaysaa markaa halkan name baa ku qoran oo magacii baad gelinaysaa halkan phonekii halkan emailkii waad garanaysaa sida loo sameynayo account type kuna waxa weeyaan maxay weeyaan lacagta base-ka ku noqonaysaa waa maxay USD baan odhanayaa markaa USD baan leeyahay USD baan dooranayaa account type ECM waa brokerka ICM waxa weeyaan markaa brokerka magaciisa maxay hayday ECN waa akoonku nooc yahay marka isla broker kan IC market ayaa wuxuu yahayba ECN marka la average kuna waxa weeyaan halka aad ka dooranayso awood noocyada suuqa ku galaysaa 400 ama 300 ayaad ka dooranaysaa halkan waa depositkii waa lacagtii marka aad dooranaysay waxaan leeyahay iyadana 3000 igu daaban leeyahay create baad leedahay saasaad marka already ay kugu samaysmaysaa demo account realiguna isla intaas aad martay un baad iyadana soo maraysaa iyadu kaliya waxay kaga duwan tahay waxa weeyaan iyadu markaa iyadu waa ID-ga iyo password-kii baad soo gelinaysaa lagu siiyay halkan markaa waxaynu soo furan doonaa lacagii wax ku gooni doonayaa keeni horena iska soo furanaynaa keeni horena ku soo noqonaynaa lacagii wax lagu soo dardaray noqonaysaa keenan inoo furan baan isku daynaa markaa inaynu markaa trade furno sidan marka kugu joogo ayaad markaa hold on cabaar baad yara haynaysaa markaad yara hayso waxaad click siinaysaa markaa new order baad leedahay new order markaad tiraahdo oo markaa dalab cusub ii fur markaa halkan numberkan zeroyada uu ku qoran yahay waxaad gelinaysaa TB-ga lagu siiyo lambarka TB-ga aad gelinaysaa take profit 1-ka halkan waxa weeyaan markaa SL-kii stop loss-kii TB 1 2 3 baa laga yaabaa inaad aragto dhowr trade baad furi kartaa oo midna 1 gelin kartaa halkan ka kalena 2 baad gelin kartaa trade ka labaad ka kalena 3 ayaad gelin kartaa saasaad sameyn kartaa halkan markaa aad bay daaqadan muhiim tahay inaad wada fahanto halkan markaa waa lot size-kii casharkii hore ku soo fahanteen ayaan jeclahay waa lot size-kii oo macnaheedu tahay markaa suuqa intaasaan la gelayaa lacagtaydan akoonka igu jirta halkii marba intaan ka isticmaalo oo haddii sal ay noqotana hoos aan ula raaco oo de aan ugu faa'iido wixii marka aan sal ka helo hoos ahaan hadduu suuqu ila dhaqaaqo hadday baan noqotana sidoo kale marka daaqadan sareen eegina iyadana
daaqadan sarena waxa weeyaan market execution horta waxa weeyaan in sida uu yahay suuqu aad click ku siiso barta price ku marayo halkan imika halkan isku day inaad fahantaan lambarkan hoose 31967 waa halka uu suuqu marayo lambarka bluega 31964 ee casaanka ah marka leenka casaanka ahna waa brokerku inta uu ka goosanayo weeyaan marka intan u dhaxaysa labada line waa inta brokerku ka cunayo sida u faham waa spreadka uu ka qaadanayo brokerku marka uu casaankana uu ka hoos maro bluega ay faa'iidada bilaamaysaa markasto kan labadan ay saa u kala fog yihiinba waxa badan inta uu ka cunayo brokerku markasto isku soo dhawaadaan faa'iidada ku jirta oo la uu casaanku ka hoos maro oo casaanku hooseeyo kuma bilaabayo faa'iidadii waayo intan hore waxa haysta waxa weeyaan waa brokerkii okay aynu eegno tan iyada sarana buy limit maxay kaga duwan tahay iyo maxay ku kala duwan yihiin buy limit iyo sell limit iyo buy stop iyo sell stop okay buy limit waxaan oran karaa in 10 ka horena ku soo sharaxda lagu soo sharaxay baan filayaa buy limit iyadu waxa weeyaan candle price soo socda kor u soo socda oo markaa samaysmayay oo de socda in aanad markaa raacine ka dambeeyay markaa bilaabmi doona ee isla price-ka soo gaara inuu markaa suuqi ku raaciyo haday sell limit haday tahayna sidoo kale markaa candle markaa bilaabmay oo hoos u socda baad leedahay markuu kan dhamaado maahe ka kale aniga iraaci selka yani candle-ka labaad iraaci halka markuu yimaado kan markuu dhaafo ka dambe aniga iraaci weeyaan macnaheedu buy stopna waxa weeyaan inaad markaa aad isbaara dhigato oo kale oo ah markaa halka markuu yimaado aniga toos iraaci oo markaa suuqiyo kor soo socda ayaa waxaad imid matalan lambarkan imika eegno imika lambarka uu sareeya iyo lambarkan way kala sareeyaan marka kan hoose marka la soo dhaafo kan soo socdo lambarkan soo socdo barkan imaado lambarkan imaado aniga toos iraaci marka sell stopna waa sidaas oo kale yadana oo marka suuqi hoos u soo socday inaad meel ku sugto marka price meel ku sugaya aad doorato kadib markuu imaado uu ku sii raaciyo marka oo toos marka suuqi uu ku furmo trade-kii oo ku sii bilaabo marka suuqi marka sida ku gashid intaas ay ku kala duwan yihiin de halkan waad garanaysaa waa sell iyo buy oo marka halkii aad amarka ka dhiibaysay suuqa lacagtu waxay noqotayba waxay ahaydba waa halkaad ka dhiibaysay marka waxaan leeyahay buy baan leeyahay aniga saa igu gali baan leeyahay loodkana waxaan leeyahay waxaad iga dhigtaa waan leeyahay 1 bay iga dhig 1 iga dhig baan leeyahay loodkana buy baan leeyahay iga gali already saas ayuu kugu furmay suuqi sidaas ayuu suuqi kugu furmay trade-kina saas ayuu kugu soconayaa markasto markaad casaankan aad arkayso waa marka aad loska ku jirto marka uu blue noqdana oo sidaas oo kale noqdo blue-gana waa marka ay faa'iidadu ku bilaamato okay waxaan isla eegi doonaa in raacin doonaa faa'iidada isagoo sida ay kugu socoto faa'iidada sidee baad u kala xiran kartaa waxaan click siinayaa dhinacan saas oo kale aan u jiidayaa markaan saa u jiido calaamada tigta saxda baan dooranayaa waxaan kala barayaa lot size-kaygaasaan kala barayaa keliyata waxaan ka dhigayaa 0.5 baan ka dhigayaa 0.5 baan ka dhigay close profit baan ku dhufanayaa markaa waxaad arkaysaa $5 halkana maxaa ii xidhmay $6 baa ii xidhmay $12 buu mariyay markaa trade-ku waad arkaysaan aan ku celiyo intaa aan ku celiyo tigtan markaa aan click siinayaa waxaan sii kala barayaa maxay lot size-kaygaan sii kala barayaa haddana lot size-ka maxaan ka dhigayaa 2 baan ka dhigayaa 0 maxaa dhacay close with profit aan click siinayaa waxaad arkaysaa weli inuu ii xidhmay haddana inuu ii xidhmay trade-kii kalena waa kaa 2ga waa kaa kuwan hore iyaga iska daa 2ga waad arkaysaan sidaasaad u kala xidhaysaa profitkaagana markaa signalka lagu soo siiyo signalka markaa lagu soo diro markiiba haddaad suuqa ku soo gasho bilaa take profit iyo aad click soo siiso ood ku soo gasho already waxaad doonaysaa markaa inaad dib u gashato signalkii
already scalping baa tahayba scalping baa tahay waxa lagu dhibaa suuqa sida uu yahay ku gal markaad click siiso market execution isagoo sida market execution ka isagoo saa ugu taagan isagoo tabtaasa oonad gelin TB iyo aanad gelin stop loss toona aanad gelin marka aad suuqii aad soo furato sell ama buy midun aad soo tiraahdo cabaar baad haynaysaa markaad cabaar hayso modify baad markaa click siinaysaa modify aad click siinaysaa modify markaad click siisaa baad gashanaysaa maxay TB gi loo siiyay iyo markaa stop loss ki TB gi baad gashanaysaa already kan isma dhaqaajinayo lot size kaasi ogow saasad markaa trade kaasina waxa la oranaysaa markaa modify halkan inactive ka ah ayaa active ku noqonaysa markaa active ayaa markaa active bay noqonaysaa marka active noqotad click siinaysaa modify waxa dhacda xataa in marka waxa dhacda in TB gi lagu siiyay oo gashatay SL ki lagu siiyay oo gashatay oo wali inactive aanay wali ahayn oo inactive ay tahay baa dhici karta markaas oo kale waxaad ogaataa in hadii dhinaci take profit ka loo soo dhaqaaqay waxaad ogaataa in TB gaagi loo soo dhawaaday macnaheedu ay tahay yani uu noqday lambarkuna haduu soo dhawaado TB ga haduu soo dhawaado price kan socda haduu TB gaagi take profit kaagi haduu u dhawaado inactive bay noqonaysaa haduu SL ka dhinaca SL ka uu xoogaa ku durkana waxay noqonaysaa inactive bay noqonaysaa marka saa ula soco waxa mar uu active yahay click si ama halkan plus kan click siyo lambarkii wad plus ka soo wad ama SL ka dhinacan ka wad oo yara durkiyo yani yara fogey ama SL ka dib yara durki ama take profit ka hore u yara qaad saasad markaa taana aad kaga markaa guuleysan kartaa iyadana kugu saxmaya markaa wax muhiim ah kaliya ta ka tagay ma jirtan u maleynaya markuu sidan yahay taasoo kale horta waxaad ogaataa markan aad kala xidhanayso faa'iidada aan idin raaciyo markan aad faa'iidada kala xidhanayso waxaad ogaataa tigta saxda aad saarto waxaad ogaataa lambarkan markaa muxuu ahaa lambarkan markaa lot size ku inuu hoos u socdo mooyaane kor uma wadi kartid iminka hadaan siraahdo 5 kali ma noqonayo 5 baan iminka taabanaya ma noqonayo hadaan siraahdo 1 kali eeg ma noqon karo soddonkii ugu dambeeyay buu ku soo noqonayaa marka hoos mbadu si degi kartaaye 01 iminka uu ogol yahay 02 oo kale uu ogol yahay teedi uu ogol yahay maadaama soddon aha markii hore uu ogol yahay marka inuu hoos u sii socdo mooyaane markastood si kala xidhiso faa'iidada inuu hoos u socdo mooyaane kor uma wadi kartid hayso dhan maxaa qaldan marka uu dheeraaday ayaan filayaa videogani waxaan filayaa marka aydan mar dambe ka caban doonin sidee trade loo qaataa iyo sideen faa'iido u kala xidhaayo sidee marka maxay heedayaan anu ogaan karaa inaan trade ku ii furan yahay inaan ii furnayn iyo khayr baan isku ognaa insha Allah waa inoo videogeena xiga